dacwad ayaa lagu soo oogay 98 jir ka mid ahaa ilaaladii hore mid ka mid ah xeriyihii Naaziyiintii hore ee dalkan Jarmalka taasoo la rumaysan yahay in dad fara badani xeradaasi lagu xasuuqay warbixintan waxaynu ka soo xiganay mid ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer dunida hase ahaatee muhiimadda gaarka ah ee inaga noo leedahay ayaa ah cadaaladda iyo sharciga in uu dib kuugu celin karo 80 sano ka hor dhibaatadii aad bulshada dhexdeeda ka geysatay inta aan warbixinteeda gudaha kuugu galeen waxaan ka codsan lahaa inaad saaxiibada la wadaagto si dadka cadaaladda la dhiban aanu weli u quusan ay u sugaan nasiibkooda iyo sharciga goorta ay isku waafaqaan anigu waa Kamaal Xasan sida lagu daabacay warbaahinta CNN-ka dalka Mareykanka 98 jirkan ilaalada ka ahaa xaruntii hore ee Naaziyiinta dalka Jarmalka ayaa lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa dilka dad gaaraya 3,200 qofood kuwaasoo qayb ka ahaa xasuuqii baanaay dadka Yahuudda loogu geystay qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Jarmalka dacwad oogaha magaalada galbeedka dhacda ee Gießen una dhow magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa warbixintiisa ku soo saaray in ninkani uu ka shaqayn jiray xerada Sachsenhausen inta u dhaxaysay sanada 1943 ilaa 45 oo ay ka arriminayeen kooxaha Naaziyiinta dalka Jarmalka dhibaatada ba'an ka geystay sidoo kale dacwad oogayaasha dawladda Jarmalka ayaa warbixintooda ku xusay in ninkan uu ahaa da'yar xilligii uu ku lug yeeshay dambiyadan kuwaasoo qayb ka ahaa dilka naxariis darrada ee loo geystay kumanaan maxaabiis ah oo ku xirnaa xarunta Sachsenhausen ee magaalada Gießen ninkan ayaa wajahi doona maxkamadda dhalinyarada maadaama uu nin dhalinyaro ahaa xilligii uu ku lug yeeshay dambiyadii ka dhacay xarunta Sachsenhausen sidoo kale waxa ay maxkamadiisu ka dhici doontaa magaalada Hanau oo aan in badan ka fogeyn halka uu degan yahay eedeysanaha waa sida uu qabo sharciga dalka Jarmalka qiimeyn caafimaad oo lagu sameeyay eedeysanaha ayay sanadkii hore bishii October waxa ay cadeeyeen dhaqaatiirtu in ninkani uu awood u leeyahay in uu wajaho dhageysiga dacwadda halkaasina go'aanka ugu dambeeyay lagu soo gabagabeeyay dawladda Jarmalka iminka waxay dadaal fara badan ugu jirtaa inay cadaaladda hor keento dadkii ugu dambeeyay ee ka badbaaday maxkamadda dambiyada dagaalka Naaziyiinta iyagoo ah waliba dad aad u daaweyn sanadkii hore sidan oo kale waxay maxkamadda xukun ku fulisay nin 101 jir ah kaasoo isagaba ka mid ahaa ilaaladii xarunta Sachsenhausen laguna eedeeyay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay dilka dad 3,500 oo qofood lagu qiyaasay kana mid ahaa dadka loo diiwaan geliyay in ay ku baxeen xasuuqii loo geystay dadka Yahuudda ee ka dhacay dalka Jarmalka xeradan Sachsenhausen Naaziyiintu waxa ay ku dhiseen maxaabiis sida la sheegay sanadii 1936 ayaa la dhisay waxaana lagu xareeyay dad maxaabiis gaaraya 200,000 oo maxbuus halka la aaminsan yahay 100,000 oo kamid ah in ay ku baxeen intii xaruntaasi intii lagu gada jiray dagaalkii labaad ee adduunka ugu dambeyn warbixintan waxa lagu sheegay qiyaastii dad 6 milyan gaaraya oo Yahuud ah in lagu laayay xeriyihii kala duwanaa ee Naaziyiinta intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka sidoo kale siyaasiyiin iyo dadka afkaar duwan ayaa iyagana ka mid ah dadkii xabsiyadaasi ugu dhintay tacadiyada kala duwan ee loo geystay gabagabadii barnaamijka warbixintan oo aan waqti fog akhriyay waxa igu dhaliyay inaan dib u akhriyo ama aan la wadaago saaxiibada halkan ka daawaday barnaamijkan inaan la kulmay mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed oo muddo 5 sano ah cadaalad u raadinaya wiilkiisa oo ay magaalada Muqdisho bartamaheeda ku toogteen qaar ka mid ah ilaalada mid ka mid ah siyaasiyiinta ama dadka ugu tunkan weyn leh magaalada Muqdisho hase ahaatee waxaan xusuus ugu reebay sheekada warbixintan si uu mar u sugo inuu cadaaladda la kulmo iyo sidoo kale waxa warbixintan igu dhaliyay kadib markii aan maqlay in dawladda Soomaaliya ay cafis u fidin karto dhiig cabyada
dilaaga argagixisada hogaamiye kooxeedyada iyo mid kasto oo shacabkan xasuuqa inay iyadu cafin karto halkii ay dowrka ahaa in dawladdu 100 sano kadib ay awoodeedu tahay inay mar un hesho cadaaladda muwaadin la dilay 100 sano ka hor ama 1000 sano ka hor waa maasantiin aragtidaada adiga cadaaladda sharciga dhalinyarada iyo maxkamadeynta 8 sano kadib Soomaaliya sidee u aragtaa